بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن أو ونكسن داوديال ميلكستو عدالة الدنيا كلا سعوتان كسو دوادا برنامج كان أو كسابسان حسكا سيديد إيو طبان كمي إمالينتا قراني مدى سومالي لان إلا صنقشنا مدح بناني دا سومالي لان سيديد إيو طبان كمي حفلدن بلاران أيا وحا أي كرد عدي دالكاسي تنسانيا مناسبتاً oo aad loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin aqoon-yahan waxgarad haween dhalinyaro iyo marti sharaf aad u tiro badan oo halkaasi ku soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo waliba ciyaaraha loogu talagalay dabaaldega 18 May iyo khudbadihii ka dhacay dalkaasi Tansaaniya dunida ayaa aad looga xusay sanad guurada 34aad ee 18 May dalka Tansaaniya waxa uu kamid ahaa dalalkii sida lixaad kale iskugu soo baxay dabaaldegaasi xafladan ballaaran ayaanu idinka soo diyaarinay barnaamijkaasi meel kasta oo aad joogtaan waxaanu idin leenahay daawasho wacan oo wanaagsan الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما هذا ودن إلهي باله سو كاني حفلة قيمة له إقاية له aynu ku xusayno 18 May oo caawa aan kaga soo qayb galnay hoolkan qiimaha leh ee ku yaala Dar es Salaam Tansaaniya waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oon bilowgaba salaamayaa ka soo qayb galayaasha qiimaha leh ee kala duwan hablaha qiimaha leh quruxda badan ee halkan ka soo jeeda inamada odayaasha aqoon-yahanka ganacsatada culimada qof waliba magacu kaga soo qayb galay ayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa idinkala soo qayb galo xafladdan iyadoo ay tahay sanadkii labaad ee aan idinkala soo qayb galo anigood aad iyo aad igu weyn tihiin qalbigayga haddii aynu halkan iskugu nimid waa inaynu wixii aynu iskugu nimid wax iskaga sheegno 18 May maxay ku timid halkayse ka timid labadaa qodobo bilowgaba inaan isweydiinaa loo baahan yahay 1969kii kolkii aynu la soo noqonnay aynu ka xorownay gumaystihii ee aynu calanka qaadannay innaga oo ay nagu weyn tahay shantii Soomaaliyeed wixii la odhanayay oo ahayd tii Faransiisku gumaysanayay Jabuuti iyo tii Itoobiyaanka oo ahayd iyaduna maxaan ku dhahaa dalka Itoobiya iyo tii Talyaanigu gumaysanayay oo Soomaaliya ahayd iyo NFD oo iyaduna Kenya ahayd waxaynu damacnay hamigeenna oo weyn awgii kolkii aynu calanka qaadannay innaga oon 5 maalmood bahaynin in aynu calankii geyno Muqdisho si aynu shanta Soomaaliyeed u midayno oo aynu shanta Soomaaliyeed awoodooda meel iskugu keenno innagoo hamigeennu aad iyo aad u weyn yahay nasiib xumo halkii aynu tagnay oo Muqdisho ahayd qaybtii Talyaanigu xukumayay waxaynu kala kulannay weji gabax weyn oo aynaan kolkaa filaynin waxaynu u tagnay dad aan u bislayn maxaan ku dhahaa calanka iyo awoodda aynu innaga kolkaa inaga dhex guuxaysay iyo hamigaa cuslaayaynu lahayn weji gabax xoog leh ayaynu halkaa kala kulannay waxa ku jabay qalbigeennii iyo niyadeennii weynayd iyo wixii aynu aaminsanayn sidaa awgeed muddo badan oo aynu meesha ka mid ahayn waxaynu ku qabnay culays badan iyo cadaadis iyo dhibaato weyn oo dadkeennii la soo gaadhsiiyey ood og tihiin dhibaatooyin badan oo aad u weyn inay ka dhaceen meelo badan waxaad og tihiin ummaddii la xasuuqayey ee maalin walba xukun degdega inta lagu soo rogo boqol inta la isugu xidho tiyoo dadku daawanayaan lagu leynayay waxaynu soo gaadhnay iyada oo
dagaal toosa maxaan ku idhaahdaa laynala galay oo maanta xaafadaheennii iyo hablaheennii iyo haweenkii laynoo dhaafay oo la kufsaday iyadoo xoolihii la dhacayay iyadoo dekadaheennii la xidhay iyadoo dhibaato weyn oo aad u weyn laynoo geystay oo qiimo weyn ku kacday taasi waxay keentay dadkii caqliga lahaa ee wakhtigaa noolaa ee awoodda maxaan ku idhaha wuxuun lahaa inay meesha ka kacaan inay af iyo adinba ay iskugu geeyaan inay samaystaan jabhad ka xorobisa ama ka dagaalanta dhibaatada shacabka lagu hayo hadday tahay dhaqaalihii hadday tahay naftii iyo maalkiiba taasi waxay keentay in dagaal uu ka dhaco ay jabhaddii ku soo gasho maxaan ku idhahaa dalka Somaliland oo wakhtigaa ay haysteen ciidamo xoog badan oo ahaa Afrika kolka la eego dawladdii koowaad ama labaad ahayd oo ciidankeedu aad u xoog badnaa ayaa inama jabhada oo maxaan ku idhahaa naftooda hibeeyey ayoo weliba tiradooduna kooban tahay ay halkaa ku soo dhexdhaceen dabeetana waxaa ilaahay guushii siiyey iyagoo xaq ku taagnaa awgeed ayaynu guul xoog leh halkaa ka qaadannay 3 sano oo dagaal joogto ah ayaynu halkaa aynu ku jirnay oo dadkeennii shacab iyo haween iyo ciyaalba lagu laayay oo diyaaradaha ka soo kaca caasimadda iminka halkay Somaliland caasimadda oo Hargeysa ahayd ay dadka gudaha dalka ku leynaysay ama magaalada gudaheega ku leynaysay qaxootigii ka qaxay ee xamili waayay madaafiicdii iyo dagaalkii dadka lagu hayay ee dhulka miyiga u baxayna waxa kaga daba tegay diyaaradii halkaa waxa ka dhacay xasuuq xoog leh taasi waxay keentay in qof kasta oo awood u lahaa inuu qori qaato sida 19 aynu ku guulaysanay oo aynu ku jabinay cadowgii kolka dagaalka inagu hayay ama dhibaatada inagu hayay sidaa awgeed baa dadkii Somaliland ka soo jeeday hadday tahay qabaa'ilkii iyo dadkii deegaamada kala duwan ku noolaa waxay isugu yimaadeen magaalada Burco la yidhaaho 1991 bishii May xilligan oo kale waxay ku heshiiyeen inay dawlad Somaliland oo tii 60kii luntay halkaa lagu soo celiyo calanka maanta laa ilaaha illa allah muxammad rasuulullah uu ku yaallo ee halkaa aynu ku haynaa waa calankii lagu heshiiyey ee dadkii Somaliland ka soo jeeday ay ku wada heshiiyeen inay calankaa ku midoobaan dawladnimona halkaa lagu dhiso oo dhibkii iyo dhibaatadii loo soo galay aynu halkaa ku ilowno aynu calankaa dhisano dawladnimada maanta shaqaynaysana aynu halkaas kula soo noqonnay sidaa awgeed gobolkan maanta dalkan aan joogno ee Tansaaniya ee ay ku nool yihiin jaaliyadda qaaliga ee qiimaha ku leh Somaliland waxay ka mid ahayd dadkii xoogooda iyo xoolahooga iyo naftoodaba geliyay baad ka mid ahaydeen awowyaashiin iyo aabbayaashiin waxay ahaayeen dadkii xoogooda iyo xoolahooga iyo naftoodaba ku bixiyey waxa taqaanaan intii magacyada badan la baxday hebel Tansaaniya iyo hebel magacyadii badnaa ee hebel Sawaaxili iyo waa East Africa oo ay ka mid tahay Tansaaniya dadkii ka soo hawlgalay ee dagaalka fiican xoog iyo xoolaba geliyay baad ka mid ahaydeen sidaa awgeed maantana waxaad tihiin dadka xusaya calankoodii iyo ciidoodiiba inay halkan ku xasuustaan ee maanta qiimaha sidaa weyn ee quruxda badan isugu soo baxay ee aniguna aan kala soo qayb galay sanadkii labaad oonan filayo waa sanadkii labaad ee xaflad intan leeg loo qabto dabaaldegga Somaliland ee 18 May halkaa waxaan ku dhammaynayaa taariikhdii iyo xooggii aynu gelinay waxaan maanta u soo noqonayaa halkaynu maanta joogno maanta waxaynu haysanaa dawlad weyn oo qiimo leh oo caalamka dhul badan laga yaqaano inkastoonay weli ku guulaysan in calanka Somaliland jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa la geeyo laakiin waynu la haabanaynaayo waxaan isleeyahay waqtigii aynu ugu dhoweyn baynu taagannahay innaguna maanta waxaynu ku talagalnay inaynu calankeenna caalamka tusno oo ay ka mid tahay dalka Tansaaniya oo jaaliyadda qiimaha leh ee Somaliland ee halkan ku nooli aynay tahay dadaal badan inay ku bixiso waqti badan inaad gelisaan sidii laynoo aqoonsan lahaa ee calanka Somaliland uga babban lahaa jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa
aynu halkanna ugu yeelan lahayn safiir caalami ah oo Somaliland ka soo jeeda idinkana waxaan idinka codsanayaa haddii tihiin jahliyadda qiimaha leh Somaliland waxa tihiin dadkii maxaan ku dhahaa kaydka u ahaa ama waqtiga badan lagu ku soo bixiyay iminkana dib u dhiskii ka qayb qaatay awowyaashiin iyo aabbayaashiin xooggii ay geliyeen ayaa maanta Somaliland meelahay ku taagan tahay ka mid ah idinkana waxa la idinka doonayaa haddaad tihiin aqoon-yahan haddaad tihiin culimo haddaad tihiin ganacsato inaad awood badan gelisaan inaad tayaysaan jahliyadda halkan aynu ku leenahay ee qiimaha leh ood awood fiican u samaysaan kala dambayn aad u samaysaan maamul adag aad u samaysaan dabeetana aad dalkiinniina la soo xidhiidhaanoo ubadkiinna haddii alla yidhaa kolkay dhashaan ilaa ay 10 jir gaarayaan inaad Somaliland geysaan si ay luuqadii iyo maxaan ku dhahaa dalkoodii ula soo qabsadaan hadhowna aad halkoodan ku soo celisaan iyagoo aqoontii afkoodana leh diintoodii iyo dhaqankoogiibana wax badan ka haysta inaad halkan ku soo celisaan halkaa waxaad ku soo gaadheen aabbayaashiin iyo awowyaashiin oo ahaa dad adag oo Somalilandnimada ku adag oo dhaqanka ku adag oo diinta ku adag waa taa maanta idinka muuqata jahliyadihii caalamka kala tegey ee idinka dambeeyey qaybo dhan baa maanta nuquus laga taagan yahayoo aan dalkoogii iyo dadkoogii iyo diintoodii midna aan xasuusnaynoo ku milmay meelihii ay joogaan laakiin idinku waxaad tihiin inaad sidii waxaad kaga nasiib badan tihiin waalidkiinni iyo awowyadiin ayaa waxay ku dadaaleen inay luuqadiinnana ku dadaalaan ood afkii wax ka sii haysaan in ay diintiinna iyo dhaqankiinnana ku dadaalaan oo wataa maanta idinka muuqata waxaan leeyahay halkaa ha laga sii wado halkaa ha laga sii dadaalo jahliyaddana aad ha loo tayageliyo annaguna waxaan insha allahu tacaala ku dadaalayaa inaan idinkala qayb qaato dowladdii Somaliland ee iminka isbeddelka maxaan ku dhahaa ku timid ee iminka maanta madaxweyne cabdiraxmaan iyo xukuumaddiisa waxaan insha allahu tacaala ku dadaali doonaa in halkan la idiin sameeyo wakiil Somaliland wakiil ka ah oo maxaan ku dhahaa ku metela dalkan Tansaaniya oo aad soo dhoweyn doontaan idinkuna haddii alla yidhaa xidhiidhka ugu badan inoo dhaxayn doono oo dalkiinna iyo dadkiinnaba insha allahu tacaala idinku xidhi doona ayaanu ku dadaalaynaa insha allahu tacaala madaxweyne muuse biixi oo madaxweyniheenii hore kolkii aan halkan idinkaga noqday waan u tegey waxaanan u sheegay meeshani inay tahay meel jahliyad qiimo lihi ku nooshahay oo ku habboon in loo sameeyo wakiil madaxweynuhu wuu ila qaatay laakiin wakhtigii baa ka soo gaadhayoo isbeddelkii baa ku yimid iminkana waxaan insha allahu tacaala ku dadaali doonaa xukuumadda uu hogaaminayo cabdiraxmaan inaan ka hawl galo haddii alla yidhaa inuu halkan wakiil u soo magacaabo dowladda qaybo badan oon kala kulmay marka soo baxayeyna waanu ka ballannay insha allahu tacaala sanadkaas sanadkiisa waxa qabanqaabin doona xafladda wakiilka Somaliland u matali doona dalka Tansaaniya oo awood badan gelin doona insha allahu tacaala xafladihiinna oo insha allahu tacaala iman maayo anigoo qurihii ka soo qayb geli maaye wixii iminka ka dambeeya dowladda qayb badan oo ka mid ah ayaa idinkala soo qayb geli doonta haddii alla yidhaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin boqolkiiba boqol Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato cadowgeedu ha dhaco idinkuna noolaada Somaliland juu idinkuna juu insha allahu tacaala aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ibraahim cismaan kusoo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين عاو كلا iyo sanadkii hore tagayba iyo dad badan oo xusu jiray sanadii hore dhaafan waxaan isugu nimi sanad guuro loogu dabaaldegayo dal
la yiraahdo Somaliland dal la yiraahdo Somaliland marka oo ku yaala geeska Afrika marka inagoo Tanzanian ah oo Tanzania degan oo shacab weynaha badankoodu originally ay ka soo jeedaan Somaliland marka dalkaas ayaa waxaan ugu dabaaldegaynaa la soo noqoshadiisii madax banaanida jamhuuriyadda Somaliland marka maaha waxa laga yaabaa dad badan inay ku cusub tahay taariikhdaasi laakiin dal cusub oo la sameeyay 91kii maaha waa dal marka waxa jeclaan lahaa maadaama inuu nahay community Tanzania maqsuudkan isugu nimanayna uu yahay meeshii asalkeenu ka soo jeeday inaynu caawa xusno oo aan ogaano maxaynu ku biirin karnaa maxaynu se ka faa'iideysan karnaa marka insha Allah hadalka ma badinayo waxaan jeclaan lahaa community-geenu bal inaynu muhiimadda ugu weyn ee halkan aan isugu imanaynaa waa inaynu inagu bal lafteenu dadka badanaa isma arkaan ma kulmaan qof walba wuxuu ku mashquulsan yahay axwaashiisa gaarka marka muhiimadda koowaad waxa weeyaan imaanshaha halkan aan imanayno ee dadku isugu imanayaan inaynu lafteenu sidii maxaynu isku horumarin karnaa maxaynu kala faa'iideysan karnaa inaynu taa lafteeda community ahaan aynu isla eegno oo kulley barnaamijyadaas waxay u baahan tahay maxay tahay in la organize gareeyo dee qof walbana wax laga rabaa in xaggiisa inuu ka soo maxay tahay wixii community-ga uu naftiisa ku kordhin lahaa iyo wuxuu dalka Tanzania degan yahayba waayo waxa la rabaa inaad Tanzania ku nooshahay iyo adiga community ahaanba inaad kor la soo qaado haday noqoto waayo adduunka wada aragtaa soo socdo caruurtaada waxbarashadooda haday noqoto maxay tahay maxaa adduunka xagan u soconaa haday noqoto xiriir san la yeelan karnaa dalkii aan ka soo jeednay Somaliland marka insha Allah taala waxay la tahay imaanshahan isugu imanayno inuu noqdo mid loogu gogol xaari doono sidii aynu community ahaan suucan isugu xidhnaan lahayn oo aynu uga sii ambaqaadi lahayn waxa fiican ee maxay ahaatay inagu qabsan karno kadib marka inagu hadii wax qabsano marka dad kale loo faa'iideyn karaa suldaankaana ka soo shaqeeyay taariikhda Somaliland kulley dalkaas waxa weeyaan wuxuu ku dhisan yahay oo loogu yagleelay nabad iyo wanaag inay daris kale kula noolaado iyaguna nabad ku wada noolaadaan dawladnimadooda iyo waayo dawlad la'aan adduunka dadku ma noolaan karaan dawlad hadaanay jirin waxba ma jiraan waad ku aragtaa meelaha burburay siday u baabaasan yihiin marka inaga dadka Somaliland dhidibadiisa iyo ujeedooyinkiisu waa nabadda iyo in kula noolaanshaha nabadda geeska Afrika iyo dalka jiiraanka aba markaas taas weeyaan maqsuudka Somaliland loo abuuray ee u dhisan tahay iyo inay shacabkeedu dawlad fiican oo waanad ogtihiin xukunka la iskuma qabsado doorasho tay timaado waa la dhigaa ninkii ku guuleysta si cadaalad ah ay ku qaata marka waana talaabo fiican oo horseedaysa caalamka tustay Afrikaba inay meeshu tahay meel soo iftiimaysa oo nabad iyo maxay ahaatay power-ka in lagu kala wareego si nabada waa waxyaabaha waaweyn ee adduunka horumaray ku guuleysteen adduunka horumaray maxay ku guuleysteen power-ka in lagu kala wareego si nabada oo qofkii marka hela ilaahay siiyay inuu qaato kii kalena uu ogolaado markaas waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu guuleystay oo meelo badan oo Afrika ay ku feel garoobeen marka hadalka inaan idinku badin marti sharafka hooyooyinka gabdhaha walaalaha ah aad baan idin salaamayaa waad mahadsantihiin sida u soo camirteen iyo xagga ragaba marka insha Allah taala
Somaliland هذا ربطان يعني تسيو قانتنا بريهن ويب سايت هذا جوجل كاي لقى يقرأ مركا إن شاء الله تعالى بل وحي سيدي كلا contribution هان سيدنا إنه community إنه هرمرين لهينا إن شاء الله تاسنا وين كشقين دونا وحنا سمين دونا بل تد سكين صاحرة أو connection كاسمية مركا كل وقت واسعة إتكم مسي درينا يو وما سنتين دمانتي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ محمد إبراهيم عثمان آدي آد بومات. وهالكان إسقوط مي إن كقريب كلام maalinta qiimaha leh ee 18 May waxaan idinku salaamayaa salaanta Ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horeyntii halkan si qaaba waxaan ugu mahad celinaynaa xukuumadda Somaliland iyo dhammaan shacabka reer Somaliland oo ku guuleystay doorashadii ugu dimuqraadiga badnayd ee ku qabsoontay kaadhadhka codsiga ee dijitaalka sida nabadgelyada iyo habsami u socodka oo ay labada madaxweyne ku kala wareejisteen talada dalka waxa ay Somaliland ku kabsatay horumar ay ku muujinayso bislaydkeeda iyo sida ay u go'aan uga tahay dimuqraadinimadu guushaasi waa wax lagu faano iyo tusaale u ah kuwa kale in ay ku daydaan maanta 18 May waxay astaan u tahay munaasabada taariikhda leh ee muhiimka ah waa maalintii ay SNMtu guul ka gaadhay xoreynta Somaliland oo ay afjartay taliskii gumaysiga in ka badan dhowr iyo 30 sanadood ayay Somaliland waxay ahayd dawlad madax bannaan kuna nool nabadgelyo iyo xasilooni daqiiqadahani waxay ina xasuusinayaan adkaysigeena geesinimadeena iyo dadaalkeena si aan u dhisno mustaqbal ku xididaysan barwaaqo iyo xoreyn buuxda xagga ololaynta xornimada Somaliland wali kama helin gargaar ku filan guudiyada ururada caalamiga ee ay ka mid tahay qaramada midoobay iyo African Union goobahani waxay u baahan yihiin olole diblomaasiyad ah oo joogto ah oo isbahaysi leh ku dhisan strategy si loo xiro keiska aqoonsiga halku dhega iyo fariinta aynu dirayno shacabka Somaliland ha noqdo gooni isu taga waa la gaari karaa balse waxay u baahan tahay go'aan qaadasho wada shaqayn iyo dadaal aan gaabsho lahayn sidoo kale waxaanu u soo jeedinaynaa dawladda Somaliland iyo cid allaale cid ay khusayso inay mudnaanta siiyaan maamul wanaaga good governance sinaanta iyo horumarka isla markaana nabadda iyo xasiloonida dalka la ilaaliyo rabshaduhu waa inay joogsadaan dadaalka waa in xoog la saaraa sidii loo abuuri lahaa bulsho horumarsan oo nabadgelyo ku nool maalintani haynagu dhiirigeliso inaynu ka shaqayno mustaqbal hufan ay Somaliland yeelato sida wadajirka waa in aanu sidii loo abuuri lahaa bulsho horumarsan oo nabadgelyo ku nool maalintani haynagu dhiirigeliso inaynu ka shaqayno mustaqbal hufan ay Somaliland yeelato sida wadajirka waa in aanu xaqiijinaa madax banaanida xoogna saarnaa Amina kila mwaka anafanya hii kazi anatoa nguvu yake
muda wake, anatoa pesa zake, na yeye ni mmoja wa watu wenye kufa na Somaliland. Leo rasmi tunamkabidhi tuzo yake kwa kufanya hii kazi miaka 13. Somalia hana olato. Somaliland hana olato. Somaliland hana olato. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland hana olaado Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi وهجاك داودياشا قيمها قدرينتا شرفتا يا كرامة ليه اللي سعودي برنامجك حسكا 18 ماي سنة جرودة أفريقيا صدونات maalinta qaranimada Somaliland oo si balaaran loogu xusay dalkaasi Tansaaniya mas'uuliyiintii halkaas ka soo qayb gashay iyo hadaladii tirada badnaa ee halkaas aad ka daawateen waad ku mahadsantihiin la socoshada barnaamijkaasi qiimaha badan barnaamijkan mid la midantiin dib iskugu kulmi doono dhinaca habaynta iyo isku dubaristu injineer Axmed Cali Beeyo aniga Umar Caliya dhamaantii bulsho TV waxaan idinkaga tagaynaa assalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.